waxaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray mashruuca waqfiga ee deegaanka madaarista ijaara kaasoo qabanqaabadiisa muddo dheer soo socotay. mashruuca waqfiga oo qiyaas ahaan ay ku baxayso dhismihiisa 300 milyan ayaa loogu talagalay inuu daboolo baahida 8 madaraso oo ku taala deegaanka ijaara. daafurka mashruuca waqafka ayaa maanta waxaa xariga ka jaray xildhibaanka degmada ijaara oo ay wehelinayeen waxgaradka iyo culimada deegaanka Gaarisa. dhammaan xildhibaanka, culimada iyo marti sharaftii kale ee ka hadlay shirka jaraa'id ayaa ku baaqay in loo wada gurmado mashruuca khayriga. بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة ولا لها مسلمين وحان أدرينا رسالة برود وراق ما فرين سيلو ما ارتضى الكلور لهوا وحيث هاي فرين تاس وقف الله لسهيو مدارس إسلامية أو إجارة ماشي قبل كإجارة ليله وهذا قرن هي أو قارس مارتي لقى حكومة هي مدارس إسلامية وقف الله صوبين هي وقف كاس يلا ربا إن لقوم الجليو دعوة الوضع قرنية كلا صوص عضبة كوالها مسلمين تام باقي يا رسالة يا وراغي برود أدرينا وقف كاس هو جودها شوغان يكون دبدة شوغان يزكوين كود زكوات كودا iyo tabarucaad kooda iyo waqaf kooda waxay waqaf ka rabaan waxay waalidkooda u waqfahayaan naftooda u waqfahayaan caruurtooda u waqfahayaan awiyahooda u waqfahayaan dhammaanina meesha ayada ay ku soo bixiyaan baan ugu direynaa waqafka meesha lagu diriyo sidaah loo dirhaye umuurahana waa liiga dambeynhayaa marka waa mas'alo tacaawuna. runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, maalin weyn weeyaan sida waalidka oo xusay. waxaan halkan iskugu nimid inaan daah furno, xarig furno, dhagax dhigno waqafkaas laga shanqariyay mandaqatu ijaara. runtii arrintaasaan maanta culimada iyo keyrkeed baa la iskugu yimid. xaflad aad iyo aad u weyn bay ahayd, aad loo soo agaasimay. ma haddaana ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala. ummadda intanoo makhluuq isku timid wax kale umayna imaanin. waxay u timid fariintaas walaalaha muslimiinta meel allaala meel ay joogaanba inay u faraan, ay u diraan dal iyo dibadba bad'an min Gaarisa County laga bilaabo gobolada Mandera, Wajeer, Gaaris iyo khaarijkaba dal iyo dibadba waqafkaas Allah hayna barakeeya. maanta la dhex dhigaya in aan ka qayb qaadano, in laga qayb qaato fariintaas qofka